diyaaradeed oo lala bartilmaameedsaday xarun ay ku tababaranayeen al-shabaab oo ku taala gobolka Jubbada Dhexe. faahfaahin ka soo baxaya weerar mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle lagu dilay oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe. madaxweynaha Hirshabeelle oo si kulul uga hadlay qarax khasaare geystay oo ka dhacay wadada xiriirisa Balcad iyo Jowhar. Somaliland oo ka laabatay heshiiskii ay la gashay Imaaraadka Carabta ee dhismaha dekedda magaalada Berbera. magaalada Muqdisho oo mar kale ku celiyay in uu furayo wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho. madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo wafdi uu hogaaminayay oo gaaray magaalada Marka iyo ra'iisul wasaare Khayro oo ku wajahan qabanqaabadii ugu dambeysay oo ka socota Marka. khasaare ka dhashay dagaal ciidamada danab ku dhex maray magaalada Dhuusamareeb ee Galgaduud. duqeyn diyaaradeed ayaa lagu soo waramayaa inay ka dhacday xarun lagu tababaro al-shabaab ama ku tababaranayeen al-shabaab oo ku taala gobolka Jubbada Dhexe. warar la helaya ayaa waxa ay sheegayeen in duqeyn diyaaradeed ay ka dhacday degmada Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe kadib markii la sheegay xarun ay ku tababaranayeen al-shabaab in lala bartilmaameedsaday halkaasi. ila dhinaca ammaanka ayaa waxa ay sheegeen in saldhig ay ku tababaranayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab lagu qaaday duqeyn dhinaca cirka ah. dhowr madfac oo diyaaraddu ay soo tuurtay ayaa la sheegay inay ku dhaceen qaybo ka mid ah saldhiggaas ay ku tababaranayeen dagaalamayaasha al-shabaab waxaana jira khasaare soo gaaray sida wararku ay sheegayaan. dadka deegaanka oo diiday magacooda iyo codkoodaba loo adeegsado warbaahinta waxa ay sheegeen in markaasi ay maqlayeen jug culus oo ka dhacaysa bartamaha degmada Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe taasi oo ka mid ah meelaha ay ku xoogan yihiin al-shabaab. duqeyntan ayaa waxa ay markaa dadka deegaanku ay sheegeen inay jirto hase ahaatee waxa ay sheegeen inaanay faahfaahin rasmi aysan ka bixin karin khasaaraha. al-shabaab ayaa inta badan waxaa bartilmaameed dhinaca cirka ah ay kala kulmaan diyaaradaha Mareykanka iyo kuwa Kenya kuwaas oo intooda badan bartilmaameedsada saldhigyada ay ku tababartaan iyo sidoo kale meelaha ay kaga sugan yihiin gobolada dalka Soomaaliya. duqeyntii ugu dambeysay ee diyaaradaha dagaalku ay fuliyeen lama sheegin cidda ka dambeysay, sidoo kalena dowladda Mareykanka ama sidoo kale dowlad kale haddii ay fulisay ina si dhab ah umaysan faahfaahin oo ma jiro wax war ah oo ka soo baxay duqeyntaas cidda fulisay. hase ahaatee waxaa la aaminsan yahay in diyaaradaha Mareykanku ay ka dambeeyaan duqeyntaas oo iyagu muddooyinkii dambe howlgallo dhinaca cirka ah ka fulinayay qayba ka mid ah gudaha Soomaaliya. dhinaca kalena waxaa la sheegay in duqeyn kale oo cirka ah ay ka dhacday gobolka Shabeellaha Hoose. duqeyntan oo iyana lala bartilmaameedsaday deegaano ay ku sugnaayeen al-shabaab oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. al-shabaab kama aysan hadlan duqeymahan lagula bartilmaameedsaday Jubbada Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax ay ku geeriyoodeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle. dhinaca kale madaxweynaha maamulkaasi Maxamed Cabdi Waare ayaa ka hadlay. Xuseen Washington ayaa faahfaahinaya. warar dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo saaki ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kaasoo la egtay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle. qaraxaas oo ahaa miino nooca dhulka lagu aasay ayaa waxaa lala egtay koronyo ay la socdeen gudoomiye ku-xigeenka maariyadda gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdullaahi Shitaawe iyo mas-uuliyiin kale kuwaas oo lagula egtay deegaanka Goroley oo ku yaala inta u dhaxaysa Balcad iyo sidoo kale Jowhar. qaraxa ayaa waxaa ku dhintay gudoomiye ku-xigeenkii maariyadda maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdullaahi Shitaawe iyo sidoo kale wasiirkii hore ganacsiga dowlad goboleedka Hirshabeelle Sabriye Cusmaan kuwaas oo ka ambabaxay magaalada waa degmada Balcad kuna sii jeeday magaalada Jowhar. hayeeshee xilli ay marayeen deegaanka lagu magacaabo Goroley Daawud ayaa waxaa haleelay qarax miino nooca dhulka lagu aaso ah. waxaa kaloo la sheegay in qaraxa uu ku dhintay Axmed
waa xasan axmed cusuble oo ka mid ah shaqaalaha hay-adaha gargaarka ee ka howlgala degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana ahaa nin si aada loogu yaqaanay gudaha degmadaas. ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan degmada balcad ayaa gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay iyagoo halkaas kasoo qaaday midadka mas-uuliyiintii geeriyootay iyo sidoo kale dadkii ku dhaawacmay qaraxaas. waxaana sidoo kale dadka qaraxa ku dhintay ka mid ahaa asgar la socotay mas-uuliyiinta qaraxa ku geeriyootay. dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle maxamed cabdi waare warqoraal ah oo xafiiskiisa kasoo baxay ayaa waxaa lagu cambaareeyey weerarkii ay ku dhinteen mas-uuliyiintii ka tirsanaa dowlad goboleedka hirshabelle ee ka dhacay dureedka degmada balcad gaar ahaan deegaanka goroley daawud. madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa ka tacsiiyey geeridii ku timid guddoomiye ku-xigeenkii maaliyadda gobolka shabeellaha dhexe cabdullaahi shitaabe, wasiirkii hore ganacsiga hirshabelle sabriye cusmaan iyo ciidamadii la socday kuwaas oo qarax miino u haleelay. inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun. anigoo ku hadlaya afka golayaasha hirshabelle iyo keygaba waxaan dhambaal tacsiya u dirayaa qoyskii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer hirshabelle mas-uuliyiintii iyo ciidamadii ka shahiiday ayuu yidhi madaxweynaha hirshabelle. sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu u diray fariin dadka ku dhaqan hirshabelle isagoona sidoo kale tacsiya u diray dhammaan eheladii ay ka geeriyoodeen mas-uuliyiintii saaka ay ku geeriyootay qaraxii ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanka gololey daawud. wadada xiriirisa muqdisho iyo balcad ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay weeraro iyo qaraxyo lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan hirshabelle oo ay ku jireen xildhibaano iyo sidoo kale guddoomiye. si kastaba weeraradaas ayaa waxaa dusha u ritay dagaalamayaasha al-shabaab. dhinaca kale weerarkii saake ka dhacay deegaanka gololey ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegatay dagaalamayaasha al-shabaab iyagoona sheegay in weerarkaas uu ahaa mid qorshaysan. sanad xuseen somalilan ayaa waxa ay ku dhawaaqday inay ka laabatay heshiiskii dekeda magaalada berbera ee dhismaha milatariga oo saldhig milatari ay ka dhisanayeen imaaraadka carabta. waxaana madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo maanta ka hadlayay magaalada berbera uu sheegay in heshiiskaas ay markaasi ka laabatay xukuumadda somalilan isaga oo sheegay in loo bedelayo garoon diyaaradeed oo casri ah oo la mida kuwa garoomada caalamiga ah ee dalalka kale ee caalamka. waxaana uu sheegay in heshiiskaas wixii haatan ka dambeeya uu yahay mid ay ka laabatay xukuumadda somalilan. ka laabashada xukuumadda somalilan ee dhismaha saldhigga milatari ee dekeda magaalada berbera ayaa waxa uu imaanaya iyada oo tan iyo markii heshiiska ay wada galeen somalilan iyo sidoo kale imaaraadka carabta iyo etoobiya oo qayb ka ahaydba ay cabasho ay ka dhex taagneyd ganacsatada dekeda magaalada berbera wax kasoo dejisata iyo maamulka somalilan iyadoo tii ugu dambeysana ay sababtay in albaabada la iskugu dhufto oo xafiisyadii ku yiilay ee ganacsatadu ay ku lahaayeen dekeda magaalada berbera. madaxweynaha somalilan ayaa sheegay in wixii xilligan ka dambeeya garoon diyaaradeed loo bedelay mashruucii horey loo wada saxiixday. garoonki berbera ee in badan laga murmaayey ee imaaraadku dhisayeen ee lalahaa waa ciidan iyo ciidankan muxuu yahay laga qori lahaa ciidankii waan ka wareejiya waa shibil maanta wuxuu noqonaya habka ugu weyn. wiiganna waxaa imanaya kambarigii dhisaayey eerboorka iyo taawarka ee u rogaya qalabkii diyaaraddu soo degaya wuxuu noqon doonaa garoonka ugu weyn baan maraya. horta masar maa berigii lagu sheegi jiray mid ka weyn waa 5 kilomitir aad ka weyn oo dhinac walba u bannaan oo baddii ku ayaala oo cusub. marka qalabkiisa lagu daro waxaanu ku talagelaynaa inuu noqdo garoon dekeda ka shaqo badan oo diyaaradaha caalamka u waaweyn ka qaadaan alaabta una gudbiyaan dalalka xiran ka dheereeya tareenka ka dheereeya baabuurta haddii la yidhaahdo. marka cirkii waa looga imanayaa baddii waa looga imanayaa beriga waa laga imanaya meeya magaalada biyaha u badi waddooyinka sii kordhi nabadgelyada sii xaji intaasaan kuu sirdaanaya adiyo brasaabko. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu sheegay in imaaraadka carabtu ay mashaariic horumarineed ay ka hirgelinayso deegaan ka tirsan maamulka somalilan. waxaase uu sheegay in mashruucan markii uu socon waayo islamarkaana ay caqabado badan ay ka yimaadeen loo bedelay garoon diyaaradeed oo laga hirgelinayo dekeda magaalada waa garoon diyaaradeed oo laga hirgelinayo deegaanada maamulka somalilan iyadoo gebi ahaanba mashruucaas la baabi'iyey.
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen iyo xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa waxa ay gaareen magaalada Marka ee xarunta gobolka magaalada xeebeedka Marka oo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan magaalooyinka dhinaca dalxiiska ana halkaas lagu wadaa inuu gaaro saacadaha soo socda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre mas-uuliyiinta halkaas gaaray waxaa ka mid ah wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee maamulka koonfur galbeed iyo saraakiil dhinaca amniga waxaana wararka qaar ay sheegayaan in xilligan uu ra'iisul wasaaruhu gaaray magaalada Marka halkaas oo soo dhaweyntiisu ay ka soconayso qabanqaabo ayaa ilaa iyo habeenkii xalay laga dareemayay magaalada Marka taasoo ku aadan martigelinta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamed Cumar Finish ayaa mar kale waxa uu ku celiyay inuu furi doono wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in amniga magaalada aan lagu soo karin kumanaan ciidamo ah oo la dhigo wadooyinka dhagxaan lagu jaro laakiin waxa uu sheegay in bedelkeeda loo baahan yahay in shacabka magaalada iyo ciidamadaba si wadajir ah ay uga shaqeeyaan xaqiijinta ammaanka iyo in la soo sheego wax kasta oo la xiriira ama shaki ah oo ka yimaada gaadiidka iyo shakhsiyaadka looga shakisan yahay inay falalka amni darro ay ka geysanayaan magaalada Umar Maxamed Cumar Finish gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa isagu mar kale waxa uu ku celiyay inuu fulin doono go'aankiisii ahaa isku furidda wadooyinka magaalada oo in muddo ah kala xirnaa waxaase uu sheegay inaysan muhiim ahayn in xafiisyada dawladda loogu soo galo mas-uuliyiinta ah u adeegaysa shacabka taasi oo uu sheegay in gudoomiyihii isaga ka horeeyay uu ku dhintay weerar ka dhacay xafiiskiisa sababtuna waxa uu ku sheegay inaanay jirin wada shaqayn bulshada iyo sidoo kale dawladda ah dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay shacabka in al-shabaab loogu tago deegaanada ay ku sugan yihiin oo uu sheegay in inta badan weerarada qaraxyada iyo kuwa tooska ah laga soo abaabulo gobolada ku dhagan gobolka Banaadir sida Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe sida aan horeyba u sheegay dhagxaha ku go'an wadooyinka magaalada Muqdisho ee suuro geli waayay isu socodkii bulshada Soomaaliyeed iyo adeegyadii ganacsiga iyo nolosha dhagxaha xanibay waa la qaadi doonaa waqti dhow hadii la leeyahay waxaad la socotiin arrintaas suuro gelinteeda in loo xil saaray saraakiil khubaro ah oo aqoon gaar ah u leh amniga dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho arrintaas meel aad u wanaagsan ayay maraysaa dad badan oo kan mid ah bulshadeenu waxay walwal ka qabaan marka dhagxahaas la qaado inay cadowgu ay ismiidaamintii iyo waxyaabihii ay sameynayeen ay isugu dayaan taas anigu shaki kama qabo waxaan aaminsanahay wiilasheennan iyo gabdhaheenna isku duuban inay ka hortegi doonaan ayaan aaminsanahay oo ayan cadowga u suura gelayn marnaba inay qaraxii baabuurkii iyo dhagarqabihii fulinaya ay ishelaan oo inta ayan isu imaan gacanta lagu soo dhigi doono taas waa midaan aaminsanahay waxaa kaloon ognahay meelo aan ka fogeyn magaalada Muqdisho in laga soo abaabulo qaraxyada loo soo diro halkan oo ah caasimadii dalka Soomaaliya caasimadda oo carqaladaysan macnaheedu waxa waaye dalka oo carqaladaysan marka ma aqbali karno in kooxo argixiso ah oo caalami ah wiilal yaryar oo aragti fog aan lahayn iyo kuwa aan waxba baran inay noogu soo dhiibaan bambooyin iyo qaraxyo laguna laayo ubadkeenna anaga gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamed Cumar Finish ayaa markii la magacaabay habeenkii uu la wareegayay xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu ballan qaaday inuu furi doono wadooyinka xiran ee magaalada oo dhibaato badan ku ah shacabka magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga geystay xarumo ku yaala dalka Sacuudiga duqeymaha ay fuliyeen diyaaradaha droniska ee waxbasaasa ayaa sababay dab qabsaday 2 xarumood oo laga soo saaro saliidda iyo sidoo kale shidaalka ee dalka Sacuudiga sida ay ku warameen madaxa shirkadda
aramco la yidhaahdo ee ay maamusho dowladda sacuudiga. afhayeen u hadlay wasiiradda arrimaha gudaha iyo madax kale waxa ay sheegeen in weeraradaas lala beegsaday 2 xarumood oo laga soo saaro saliidda iyo shidaalka ciidanka.